واتن هذا بس عشان بقولك بس عشان دتك أدونك كل نولي أي قلدان هذا يمي كل تاي إن تكدو أنت هاي دتك هاس وجوابته صح ده أنا هيري كرتيد سؤال شو حيكون هذا يصير لأن أي حكون واحد قصين يلا ولا عبود وكردون لا بدن العبود مد الدورتان هذه أي اختيارك مد والباء دورتان واحد متليسة قيمة نلشاد أي ليه أضو قيمة أهان واحد كنت هجنتين نل أهان وفيرسو لا بدن العبود واحد كلا هاين $1 يلا بكون $1 wuxuu ku hada dooratid $1,000 waxaan ku siinayaa isla imika balse laakiin hada dooratid $2,000 waxaan ku siin doonaa 5 bilood ka bacdi midkee dooran lahayd oo fiirso labadan lacagood midka aad doorataa waxay mataleysaa qiimaha noloshaada leedahay hadaba intaadan videogan sii wadan isku day inaad jawaabta adigu nagula wadaagtid commentiga dhexdiina iskuna day fadlan inaad soo raacaysid sababta aad dooratay jawaabtaas انت عيننا هذا موضوعين ما انت ugu dagelin isweydii maxay tahay caadooyinka ka sii dhigaya faqir way bili aadamku ay kala duwan yihiin qof walba caado ay la tacaalaya kaasoo mataqaan u sii sahli qofkan inuu ahaado faqir caadada koobaad ee dadka badankooda faqirka si dhigtaa waxa weeyaan no budgeting miisaaniyad la'aan qofku isku day waaya kharashaadkiisa bilaha ama isbuuclaha inuu ku qori waayo meel si uu uga warhayo mar walba oo noloshina oo ogolaano inaan shay iska ilaalino si nooga warqabna maskaxdeena automatic waxa u fahantaa shaygaas inuu halis lagu yahay oo fiirso miisaaniyad waxay ku sahlaysaa kow inaad ka warqabtid lacagta ku soo gashaa inta ay leegtahay laba lacagahaaga meelaha ugu badan ay ku kala baxaan saddex in lacagta ku soo galaysa ay anfac ku leedahay adi ahaantaaba lacagta ka baxdaa ma lacag bay kugu soo celisaa mise lacagta ka baxdaaba abidib uma aragtid kuma oranayo miisaaniyad inaad samaysataa way adag tahay kuma oranayo way fududahay balse laakiin haddii aad bilowdid oo yeelatid caadadan ah inaad samaysatid bil walba ama isbuuc walba waxay kuu sahlaysaa kuugu ballan qaadaya fursado fara badan iyo albaabo fara badan inay kuu furto marka aad dhalinyar tahay aad arday tahay ama aad shaqaynaysid aad tahay single noloshaada aad ayadu control karaysaa budgeting baad samaysan kartaa miisaaniyad baad samaysan kartaa waad qori kartaa balse laakiin mar walba oo noloshu sii ballaarato way kasii adkaataa marxaladuhu ee noqotid qoys ee noloshaada ay ku soo kordhaan hal qof ama laba qof ubadkii waxyaalahaas ay ku soo kordhaan waxa si adkaanaysa maamulista lacagta ku soo galaysa halka ay ku baxayso balse laakiin caadada hadda sii buloodo waxay ku sahlaysaa mustaqbalka cid walba oo ku soo biirta noloshaada inay caadada ay kula qabsato haddii aad tahay qoysna oo aad still aadan samaysan miisaaniyad waxaan kugu ballan qaaday waxay tahay iminkadan inaad bilaabi kartid isku day inaad bilowdid dadka iyagu miisaaniyada yaqaan sida loo samaysto hambali ayaan ku leeyahay adigana balse laakiin adiga laftarkaaga waxaan ku siinayaa laba challenge labadan challenge wuxuu horumarinayaa qaabka budgeting u samaysato isku day inta aysan lacag ku soo gelin ama mushaar ku soo gelin ama lacagta aad sugaysa aysan ku soo gelin inaad si samaysatid miisaaniyada kharashaadka halka ku baxayaan waa ku talabaad waxa weeyaan isla marka ay lacagtaas ku soo gasho isku day inaad ka saartid akoonka ay kuugu soo dhacday ama haddii gacanta lagaaga siiyay in aad lacagta meeshii aad ugu talagashay sida ugu dhaqsaha badan aad kala qaybisid labadanina waxay aad u sii horumarinayaan caadada miisaaniyad samaysiga haddii aad u xiisaynaysid qaabka loo sameeyo miisaaniyadana waxaad ka heli kartaa si yar fudud YouTube-ka ama Google-ka raadi oo kaliya caadada labaad ee dadka badankooda faqiiran ka dhigtaa waxa weeyaan caadada isticmaalid la'aanta 9-to-5 job waa fursad qof walba uu ka heli karo meel walba uu joogo adduunka waa fursad ku siin karta mushaar bille oo joogto doobtid walibana laga yaabaa dadka badankoodu inay cambaarayaan ama dad fara badan hantiilayaal inay ku tusaan qoraal noocan oo kala oo ku yiraahdaan mushaarku waa sunta la rabo in lagu siiyo si aad u iloodid riyooyinkaaga haddaba dhan kale waxa ka tuso Soomaalidu waxay tiraahdaa midho gorfaha ku jira looma daadiyo midho geed sarsaar adigu awoodi karaya fursad lacag ku soo gelaysa bil walba taasoo ku sahlaysa inaad wax ku bilowdaa waa fursad aad u qaaliya balse laakiin kaba soo qaad haddaadan taa haysan lahayn waxaan hubaa dad fara badan inay ku adkaan lahayd inay hanti sameeyaan qoraalka noocaas wuxuu ku qaldan yahay inay tahay fursad wax ku siin karto inaad wax ku bilowdid balse laakiin wuxuu ku saxsan yahay waxa jira dad hadaf kale nolosha dad raba inay hantiilayaal noqdaan dadka noocaas oo kale way u saxsan tahay waayo haddii kale waxay iloobayaan hadafyooyinkii riyooyinkii ay lahaayeen talada ugu weyn ee kugu sii daray waxay tahay fursadan ha u isticmaal oo kaliya in aad qarashaad ka qaadatid ama bil aad ka qaadatid bil walba oo ku noolaatid kaga bixisid gurigaaga caafimaadkaaga wax inta dheerina aysan ku qoseyn isku day inaad hadaf ka yeelatid fursadan haddii kale waad isku dhex iloobi doontaa waxaad noqon doontaa qof noloshiisa oo dhan taa un sugo wax sugaad noqonaysaa ee isku day wax soo saare
isku day haddaba hadaf inaad ka yeelatid waxa kuu soo hara bil walba ama isbuuc walba inaad meel dhigatid haddii kale waxaad yeelanaysaa ama aad leedahay caadada saddexaad waxa weeyaan qiimeyn la-aanta $1 inta aanan u gudagelin caadada waxaan ku siinayaa tusaale run ahaantii anigaba laysiiyey aadna u bedelay qaabkan u arka lacagta kaba soo qaad waxaad ku shaqaysaa $1 saacadiiba saad u heshid $1 waxaad ku qasbantay inaad bixisid maxay waqtigaaga iyo juhdigaaga haddaba saan aaminsanaan jiray dadka badankooduna ay aaminsan yihiin waxa weeyaan in uu dagaalku idinka dhexeeyo qofkii ku shaqaalaysiiyey ee kugu qiimeeyay $1 saacadiiba waa $1 saacadiiba oo kugu qiimeeyay adigoo qof bilaadan kana qiimo weyn run ahaantii $1 in lagugu qiimay balse laakiin hab fikirkayga waxa bedeshay sida tan waxa lagu yiri dagaalku idinkama dhexeeyo qofkii ku siiyay fursadan oo ka dhigay shaqaale qofkaas wuxuu ku siiyay fursad aad lacag ku bilaabay aad ku heli kartid kaasoo ku furi doona albaabo fara badan balse laakiin dagaalku waxa idinka dhexeeya $1 laftarkiisa kaasoo ku yiri waxaad heli doontaa ama aad heli kartaa haddaad bixisid 1 saac iyo juhdi 1 saac maanta laga bilaabo waxaan rabaa inaad u aragtid $1 qaab ka duwan saad u arki jirtay $1 waa inuu ku noqdaa shaqaale waa inuu ku soo geliyaa jeebkaaga oo dib ugu soo celiyaa $1 kale oo saaxiibadii marka $1 walba ha u isticmaalin inaad kaliya aad bixisid oo mataqaana sharaab ka cabtid ee u isticmaal $1 walba oo ku soo gala oo dhigaal ku noqda inaad maal gashitid kaasoo ku soo xareeya $1 kale kuwaasoo dhammaantood ku wada noqda shaqaale marka aad saa ku sii wadid oo lacag fara badan aad shaqaale ay ku noqdaana ay ku sahli doonaan waqtigii aad ku qasbanay inaad bixisid in ay iyagu ku soo xareeyaan dakhliga aad u baahaneed ugu dambeysana aad waqtigaaga ku qabatid waxyaalo fara badan oo u baahan tahay caadada u dambaysa ee ka dhigaysa faqiir waxa weeyaan aqoon la'aanta dhaqaalaha markii koobaad waxaan hubaa adiga laftarkaagu laga yaabaa inaad la qabtid in mowduuca dhaqaalaha ay dad fara badani u sharaxaan si kakan oo dad fara badan aysan u fahmi karin run ahaantiina waxay ahayd in loo sharaxo si qof walbaaba uu u fahmi karo balse laakiin waxaan kugu ballan qaaday haddii aad ka akhrisid buugaag in aad ka horreyn doontid dadka badankooda tallaabo waxay dhahdaan ma adkaynin lacag soo gasho balse laakiin waxa adag lacagta ku soo gasho sidii aad ku hayn lahayd lacagtaasoo aad usii gudbisid ubadka adiga kaa dhalan doona ubadkaasna ay usii gudbiyeen ubadka ay sii dhali doonaan haddaba in aad sidaa awoodid waxay ku xidhan tahay baa lagu leeyahay aqoonta aad ka leedahay dhaqaalaha qofku inuu aqoon u leeyahay kala duwanaanshaha asset iyo liability in tusaale ahaan qofku haddii uu soo iibsado gaari ama dahab uu mataqaana arashada uu ku tago uu ku xaroodo ama saacad qaaliya ama dhar qaaliya inay yihiin liability mar walba ama sanadba sanad kasii dambaysa mataqaana qiimahooda uu hoos u dhacayo mar walba oy xumaadaanna adiga ay lacag kaa rabaan si aad u hagaajisid iyo sidoo kale qofku inuu garanayo assetku inay kala yihiin qofku guri uu leeyahay oo uu kareeyo lacagina ay kasoo gasho bil walba ama qofka oo businesskaasina faa'iido dib ugu soo celiya jeebkiisa ama isagoo ha maamulay ama qof kaleba ha maamulay ama sidoo kale isagoo mataqaana miisaaniyad kule shirkad ama bank kaasoo bil walba isaguna lacag uu ka helo taasaa la yidhahdaa asset sidoo kale waxaan isleeyahay fikirka xun ee dhaqaale ee bulshadeena ka dhex jira waqti xaadirkan waxa uu ka dhalan karaa aqoon yaraanta hooseysa oo qofku u haysto inuu aqoon u leeyahay shay uusan aqoon lahayn qofku cambaareeya bangiyada Soomaaliyeed sida u shaqeeyaan meel walba uu joogo oo Soomaali bangi Soomaaliyeed uu ka jiro 1997 waxa jiray shirweyne ugu qabtay Sheekh Axmed Nuur Jimcaale shirweynahaasoo ku saabsanaa dhaqaalaha sida dhaqaalaha loo kobciyo casharanta aad ka baran karto videoga ee la duubay 1997 waxaan hubaa 100% waqtigan aynu joogno dadka badankoodu inaysan wax aqoon u lahayn ani ahaantiiba waxa isweydiin jiray maxay tahay sababta ay dad aad u tiro yari ay lacagta Soomaaliyeed ay gacanta ugu hayaan sababtaas wax kale ma ahan waa qofka oo kaaga horeeya qaybta aqoonta dhaqaalaha marka qofka hadduu kaaga horeeyo aqoonta dhaqaaleed wuxuu ka horeynayaa talaabo wuxuu garan karayaa faa'iidadu halka ay ku jirto wuxuu garan karayaa halkee macaash laga helaya halkeeba la maalgashan karaya sidoo kale waxaan kugula talin inaad la jaanqaadid waqtiga aad joogtid waa sheekh waqtiga uu joogay oo mataqaana shirweynaha qabani iyo adigu waqtiga aad joogtid isku mid ma isku day waqtiga aad joogtid inaad la jaanqaadid oo ogaatid maxaa jira ama sideeba lacag loo sameyn karay haddaad xiisaynaysid qaab kala duwan oo lagu sameyn karo lacago 2023 videogan ka daawo